السلام عليكم كلنتي wanaagsan mar kale muddo hal sano ku dhow ayuu dagaalka magaalada Gaza socdaa sirdoonka Israa'iil iyo kuwa reer galbeedka waxay isku dayeen dhowr jeer in ay markaasi ogaadaan xogta halka uu ku nool yahay Yaxya Sinwar hogaamiyaha iska caabinta Falastiiniinta Hamas laakiin sirdoonka Israa'iil waxay markaas u suurtagali weyday in ay ogaadaan halka uu magaalada Gaza kaga nool yahay ama kaga sugan yahay Yaxya Sinwar dhowr jeer oo sirdoonka Israa'iil oo markaasi iskaashanayaan sirdoonka reer galbeedka isku dayeen in ay ogaadaan Yaxya Sinwar halka magaalada Gaza uu kaga sugan yahay ay ku fashilmeen taa beddelkeedana waxa dhacday in ay qaarajiyaan dad kale oo Falastiiniin ah oo adeegsanayay telefoonada casriga iyagoo markaasi islaha waa Yaxya Sinwar oo telefoon markaasi fariin ku diraya haddaba arimaha la yaab kale waxa kamid ah sida maanta wargeyska Wall Street uu daabacay waxay uu leeyahay wargeyska Yaxya Sinwar wuxuu inta badan aad iyo aad isaga fogeeyaa qalabka casriga sida telefoonada iyo kombiyuutarada waliba xitaa wuxuu aad isaga fogeeyaa ayaa leeyahay qalabka loo yaqaan flash diskiga ama USB-da taa beddelkeeda wargeyska wuxuu sheegay in Yaxya Sinwar markaasi uu adeegsado fariimaha uu ku diro qoraal ahaan qoraalka xitaa ma ahan mid carabi ah oo kaliya taa beddelkeeda wargeyska wuxuu leeyahay wuxuu adeegsadaa waxyaabahan loo yaqaan koodka haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa Qur'aanka Kariimka, higaada, luqadda Carabiga iyo culumta shariicada. Isqoristu way socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 haddaba sidaan la soconno Israa'iil muddada dagaalka uu bilowday Yaxya Sinwar waxay ku sheegeen inuu yahay maskaxdii ka dambeysay 7 Oktoobar weerarkii lagu soo qaaday ninkii markaas har iyo habeenba ay markaas ka hordilacsan yihiin ciidamada Israa'iil sidaan la socno Yaxya Sinwar wuxuu Israa'iil u xirnaa muddo 20 sano ka badan waxyaabihii xabsiga uu ku bartay ayaa waxa kamid ah ama markaasi hadda u suurtagelinaysa muddada halka sano ku dhow in gudaha magaalada Gaza uu ku dhumaalaysto waxyaabaha Israa'iil ku sheegayaan waxa kamid ah in uu helay buug kamid ah buugaagta ka hadlaya sirdoonka Israa'iil ee loo yaqaan Shinbet ama Shabak buugaasi waxa qoray qof ka tirsanaa sirdoonkii hore ee Israa'iil ee Shinbet sirdoonka Israa'iil Shinbet oo loo yaqaano Carmi Gilon buugaas Yaxya Sinwar wuxuu ka dhigay afka Carabiga wuxuu u qaybiyay sida markaas iyaga ay sheegayaan saraakiisha ugu sareeya iska caabinta Falastiiniinta waana tan u sahashay muddada halka sano ku dhow in iska caabinta Falastiiniinta qorshahoodu ay bedelaan wargeyska marka waxyaabaha la yaab kale uu sheegay waxa kamid ah Yaxya Sinwar iyadoo shirkii loo fadhiyo magaalada Doha ama sidaas oo kale Qaahira in fariin uu soo diray fariintaasi in isaga aysan si toos ugu imaanin laakiin si ilbiriqsi ah fariintaasi ay ugu imaanaysay Yaxya Sinwar isagoo adeegsanayay qoraallo sida koodka kala ah marka wargeyska wuxuu leeyahay Yaxya Sinwar qoraal ayuu soo qorayaa qoraalkaasi ma ahan mid carabi ah laakiin waxa ku qoran waxyaabo kood ah kadibna waxa loo soo dhiibayaa qof shakhsi ah ama qof markaas u adeegaya iska caabinta Falastiiniinta Hamas qofkaasina koodkaas ayuu tarjumayaa wuxuu u sii dirayaa qof gudaha magaalada Gaza jooga ama qof dibad jooga isla markiina iyadoo shirkii la fadhiyo ayaa waxa la arkayaa fariin ka timid Yaxya Sinwar arrinkaasi oo wargeyska ka hadlaya wuxuu tusaale ahaan u soo qaatay bishii June madaxa sirdoonka CIA-da Mareykanka ninka lagu magacaabo William Burns in markaasi cadaadis daran uu saaray Netanyahu iyo sidaas oo kale ninkii lagu magacaabo Ismaaciil Hani Allah u naxariistay madaxii arrimaha siyaasadda iska caabinta Falastiiniinta Hamas wargeysku wuxuu leeyahay isla markiiba Ismaaciil Hani cadaadiskaasi marka la saaray fariin ayaa waxa ugu timid Yaxya Sinwar fariintaas oo markaasi Ismaaciil Hani keentay inuu u degdego oo yiraahdo heshiiskaas in nooc la doonayo marnaba ma aqbalayno laakiin waxyaabaha la yaab kale waxay ahayd muddo daqiiqada kadib in Yaxya Sinwar uu ka soo jawaabay sirdoonka Mareykanka waxay isku dayeen iyo kuwa Shinbet inay xitaa isku dayaan inay jabsadaan madaxda iska caabinta Falastiiniinta telefoonadooda ay ogaadaan halka Yaxya Sinwar uu markaasi magaalada Gaza uu kaga nool yahay ama cidda fariintaasi soo dirtay laakiin taa beddelkeeda sirdoonka Israa'iil waxay ku fashilmeen xitaa kuwa wadamada reer galbeedka inay ogaadaan halka gudaha magaalada Gaza Yaxya Sinwar uu kaga nool yahay waxaana taa oo dhan markaasi loo eedeynayaa
buuggii uu markaasi uu helay ee qidada ay markaasi u shaqeeyaan shimbeedka Israa'iil. Shimbeedka Israa'iil buuggan waxa ku qoran ayaa la leeyahay haddii mararka qaarkood ay dhacdo in isgaarsiin ay waayaan sida markaasi ay dadka fariinta ugu soo gudbin lahaayeen saraakiishooda. sidaan la socono caalamkoo dhan waxaa la adeegsadaa arrimo kood ah. tusaale ahaan booliska waddanka UK waxay adeegsadaan kood ay markaasi iyaga dhexdooda isula wada hadlaan. waxaa ka mid ah waxaad maqlaysaa IC1, IC2, IC3. IC1ka markii aad maqasho markaad Britain ku nooshahay waxay la mid tahay qof cadaan ah ama yacni qof u dhashay Ingiriiska. IC2 haddii aad maqasho waxay taa macnaheedu tahay qof yacni European ah oo wadamadan Yurub ka yimid. IC3 haddaad maqasho waa qof madow ah. IC4 waa dad nin ka yimid wadamadan Shiinaha iyo sidaas kale indha yarta. IC5 run ahaantii ma xasuusto. 6 waa wadamada Carabta ah. marka meel walba waxay u leedahay category code ah. qofkii ayaa yacni isagoo taagan laga hadlaya. marka sirdoonka Israa'iil iyo Mareykanka muddada 10 bilood oo dagaalkan uu socday magaaladan Gaza asbaabihii ugu waaweynaa ay u burburinayeen waxa ka mid ah ayaa leeyahay inay ogaadaan Yaxya Sinwar halka magaaladan Gaza uu kaga nool yahay. dhowr jeer oo hore sidaan idin sheegay ayay waxay isku dayeen in dadka Falastiiniyiinta ay adeegsadaan oo ay ku yiraahdaan qofkii soo sheegay Yaxya Sinwar intaas oo lacag ayaan siinayna. laakiin taa oo dhan way ku fashilmeen. wargeyska sidoo sheegay xitaa Yaxya Sinwar yani qofka u tagaya waxa la yani laga ilaaliyaa in wax isgaarsiin dhan uu wato ama qalab ay suurtagal tahay inay ogaadaan sirdoonka Israa'iil. sidaan la socono Israa'iil waxay maamushaa isgaarsiinta magaalada Gaza, biyaha, leerka iyo wax walba. tan iyo markii uu dagaalku u bilowday qof walba oo gudaha magaalada Gaza ku nool waxay isku dayeen sirdoonkeeda inay ogaadaan cidda uu la hadlayo, cidda telefoonka u soo diraysa, cidda fariinta u dirayo. tusaale waxa kugu filan wariyihii lagu magacaabi jiray Mansuur ayaa waxa uu sheegay mar la lacsanaa ee la lahaa Israa'iil ayaa kaxaysatay ee dhalashada waddankaasi Kanada haystay. waxyaabaha uu ka sheekeynayay waxa ka mid ahayd isagoo gudaha magaalada Gaza dad islaha raashin ama gargaar gaarsii ay wuxuu dareemay in droniska ay leeyihiin ciidamada Israa'iil ay daba socoto. sidaas darteed wuxuu go'aan uu ku gaaray wax walba oo qalab isgaarsiin uu haystay, telefoon xitaa ha uu yiraahdo flashka yarka ah inuu iska dhigo. taana waxay u suurta gelisay muddo yacni 2 bil ku dhow ama 3 bil ku dhow in guriba guri kale uu isaga sii dhaxbaxay isagoo iska ilaalinayay in Israa'iil sirdoonkeeda ay ogaadaan ama dronisyada ay ogaadaan halka uu joogo. marka xogta hadda adduunka waxay maraysaa qofka telefoon haddii uu wato ama isgaarsiin wax yar oo qalab suurta geli kara ama magnet ku jira haddii uu wato in la soo daba kaco halka uu qofkaasi ku sugan yahay la ogaado. waana tan markaasi ay ilaa hadda ay ku fashilmeen sirdoonka Israa'iil kuwa reer galbeedka inay ogaadaan muddada 10 bil ku dhow halka Yaxya Sinwar uu kaga sugan yahay gudaha magaalada Gaza. ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada? haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur'aanka kariimka, higaada, luqadda carabiga iyo culuumta shareecada. isqoristu way socotaa, fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xidhiidh +252 63477 956